أقبلت يا رمضان يا شهر الهدى أقبلت يا رمضان يا شهر الهدى يا سعدنا لما هلالك قد بدا وحللت يا شهر الصيام مبارك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد ولا ليال وعشر كيني اللي حاد أينو كجور رمني عشر ردي بشر رمضان يتحناه نوعها وعينو شوقنا مالك كيني اللي حاد إلهي سبحانه وتعالى وحمو يديسان أينو صوم كينا أينو صومنا هينا قبله إلهينا تبارك وتعالى وحمو يديسان أينو عملك يشقدا أينو قبلنا إخلاص نوقليو وعينو كجور رمي دونا عشر كينن الحكمة من صيام رمضان حكمة دا لقلي يهي بشهر رمضان إن لصومه لبي إيتو كي بلودا إلهي تبارك وتعالى الدنيا دا كؤومي وقفك عبادوين كلا دوان أعمال كلا دوان وقبنيي إلهي تبارك وتعالى إن قموا واجبين إن نصومنا لكن بشهر رمضان إلهي تبارك وتعالى وحو إن قموا واجبين إن نصومنا هذا وحكستو إلهي تبارك وتعالى الدوميه سأشرعيه أو عبادة waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka leeyahay xikmad dhameystiran buu ka leeyahay ilaahayna tabaaraka wa tacaala asmaadiisa iyo magacaantiisa waxa kamid ah xakiim weeyaan waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala magacaantiisa kamid ah caliim baa kamid ah ilaahay tabaaraka wa tacaala xakiim buu u yahay oo caliim buu u yahay waxa uu abuurayo iyo waxa uu adoomihiisa u sharciyeynayo hadaba waxyaabaha ilaahay tabaaraka wa tacaala waajibka dushay naga saarayna bisha Ramadan ugu waaweyn inuu qabanana waxa kamida waa cibaadada loo yaqaan as-siyaam hadaba ilaahay subhanahu wa ta'ala xikmad badan ayaa ku jirta inaynu bisha Ramadan soomno xikmadda koobaad waxa weeyii inaad horta cibaadaysato oo soomtaaba waa cibaadatu lillahi tabaaraka wa ta'ala waa cibaado ilaahay subhanahu wa ta'ala qofku uu ugu dhawaanayo waxa uu ka tagayaa waxa ay naftiisu jeclayd iyo waxyaabaha naftiisu ay kamanaysay haday cunto noqoto iyo haday cabis noqoto iyo haday galmo noqoto waxana xaqiiqoobaya ruuxan bini aadamka iimaankiisa sidqigiisa iyo dhabnimadiisa xaqiiqoobaya waxa kale oo dhameystirmaya adoonnimada ilaahay tabaaraka wa tacaala uu qofku adoon yahay waxa uu qaalisanaa qofku noqdaa waa adoon inuu ilaahay subhanahu wa tacaala kalidii u noqdo oo aanu cid kale adoon u noqon تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى وحيابها لما يسترى يوحى كمدة بشهر رمضان وصومه وحيابها إلهي تبارك وتعالى وكر جينيه مركا قفك ولالك إيه مسلم كأه حكمة إلهي سبحانه وتعالى كليه صومك وحويان إن أضون ماذا الروح لما يسترانتو أو أضونك إلهي سبحانه وتعالى وقبل وادو وحي وشعلاء وعنيه نفتي صربتي وحو عبي وحو guursan iyo wuxuu la halmaalay naftiisu jeclaydba in ilaahay tabaaraka wa tacaala daraadi uga tago ومن حكم الصيام ولا لا القضب كلباد waxa kamid ah xikmadaha ilaahay tabaaraka wa tacaala soomka inoogu waajibiyay an yuhaqqiq al-'abdu taqwa Allah tabaaraka wa tacaala inuu adoonku xaqiijiyo ilaahay subhanahu wa tacaala baqihiisa ilaahay quraanka waxa uu ku tilmaamay soomka markii uu ka waramay ya ayyuhalladhina aamanu kutiba alaykumus siyaamu kama kutiba ala alladhina min qablikum dadka iimaanka lahow waxa la idinku waajibiyay soom sidii loogu waajibiyay dadkii idinku horeeyay soomka sababka la idinku waajibiyay iyo xikmadda ku jirtaana waxa weeyaan la'allahum yattaquun dadku inay ilaahay tabaaraka wa tacaala cabsi iyo baqihiisa dareemaan nabigu kaleey salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay xikmaddaasina waa xikmad weyn oo rasuulkeenu kaleey salaatu wasalaam inoo tilmaamayo qofka bini aadamka ah waajibka soomka laga rabo ee sharcigihi waxa weeyi waa qofka ilaalinaya soomkiisa waxyaabaha afurinaya ka ilaalinaya waxyaabaha qowlu zuurka ka ilaalinaya amalka xun ka ilaalinaya nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man lam yad'a qawla zuuri wal 'amala bihi falaysa lillahi haajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu qofka aan ka tagin qawla zuur hadalka aan wanaagsanayn hadalka been abuurka hadalka laqwiga
hadalka aan macno iyo qiimo uu leeyahay qofka aan ka tagin iyo wal amal bihi inuu ku amal falo qowla zuurka falaysa lillahi haajatun ilaahay baahi uma qabo inuu ka tago cuntadiisa iyo cabitaankiisa marka walaalayaal waxaad ku dadaashaa in soomkaagu saxiix yahay oo ka nabad qabo waxyaabaha ay nafta bini aadamku rabto iyo shubahaadkeega inay ka nabad gasho qodobka saddexaad xikmadaha ilaahay tabaaraka wa tacaala soomka uu ka leeyahay waxa kamida anna as-saa'ima yatakhalla qalbuhu lil fikr wa dhikr qofka soomani qalbigiisa iyo niyadiisa waxa uu u banaynayaa ayuu u faaruqinayaa inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala fakarkiisa iyo makhluuqaadkiisa iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala tafkiirkiisa ku bato ilaahay subxaanahu wa tacaala xuskiisana inuu u faaruqiyo shahawaadku waxa la yiraahdaa qofka bini aadamka yihi marka uu cunno badan iyo cabis badan iyo waxyaabo badan oo maladaata uu dareemo qalbigiisa waxa ku bata baa la yiraahdaa ku xaasila qaflada marka qalbigiisa iyo calooshiisu ay gaajootana fakirka uu ilaahay tabaaraka wa tacaala makhluuqaadkiisa aayadaha leh ee cirka leh kawniga ah iyo aayadahan inuu akhriyano ayaa qofka bini aadamka ku bata marka maladaadka adduunyada ku badatana qaswatul qalbi iyo qafle iyo waxyaabo noocaas qofku ka qaada nabigu kaleey salaatu wa salaam caadiyan dhaqan wuxuu inooga dhigay inaynu cuntada markaynu cunano iyo cabista markaynu cunanaba aynu qaacida ka samaysano nabigu kaleey salaatu wa salaam wuxuu tilmaamay aadamuhu weel uu buuxiyo waxa u shar badan calooshiisa weel ka shar badan oo la buuxiyana ma jiro markaas nabigu kaleey salaatu wa salaam wuxuu tilmaamayaa qofka muslimka ah ama ruuxa aadamaha aba waxa ku filan inuu xoogo yaro darsiima ah qaato oo uu dhabarkiisa ku toosinayo haddii ay ka xoog badato naftiisu oo uu jeclaado inuu cunto badan iyo cabid badan uu cunaba nabigu kaleey salaatu wa salaam waxa uu tilmaamay caloosha in loo qaybiyo 3 qaybood qaybna cunto lagu shubo oo la geliyo qaybna sharaab la geliyo qaybta soo hadhayna neefsiga bini aadamka iyo tanafuska loo reebo ayaa nabigu kaleey salaatu wa salaam inoo jiday xikmadaha ilaahay tabaaraka wa tacaala walaalayaal soomka uu ka leeyahay way farabadan yihiin qodobka afraad waxa kamida soomku waxa dareemaya qofkii qaniga ahaa ayaa wuxuu dareemayaa nicmada ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku galaday ee uu haystay ee cunis iyo cabis iyo gaajala aan ahayd ayaa waxa uu dareemayaa qofkii qaniga ahaa ayaa waxay u noqonaysaa isaga laftiisa inuu naftiisa tababaro oo uu ku sameeyo inuu dareemo waxaanu qofka faqiirka haysani ee cunno iyo cabis iyo wixii la halmaaday kadibna ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ugu mahadnaqaya uu u mahad celinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu dareemayaa qofka faqiirka ihi dhibaatada iyo xanuunka uu haystay ayaa uu isaguna dareemaya nabiguna kaleey salaatu wa salaam in farabadan waxa uu nagu dhiirigeliyay ruuxa bini aadamku hadii uu wuxuu haysto wuxuu cuno iyo wuxuu cabo waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala kaga raali yahay ruuxa aadamaha ay adoonka marka uu wax cunana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu xamdiyo marka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu cabana inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahadnaqo ruuxaas ilaahay tabaaraka wa tacaala shaakiriinta ku galada shaakiriinta iyo dadka ilaahay tabaaraka wa tacaala u mahadnaqa marka ilaahay nicmad iyo galad uu siiyo marka xikmada weynina waxa weeyi dadkii baa sinaanaya madax iyo mijo cid wal oo adduunyada uumay oo shuruudii laga helay soomku waxay noqonayaan dad midaysan oo wada soomaya oo qofkii bini aadamkii soomkii uu midaynaya maadaama uu midaynayana dadkii waxay dareemayaan inay isku mid yihiin qofkii qaniga ahna wuxuu dareemayaa qofka faqiirkii waxaanu haysa naftii bini aadamkuna dib bay u soo noqonaysaa xikmada shanaad waxa kamid ah xikmadaha soomka ilaahay tabaaraka wa tacaala dhiigeenu xididada uu marayo waxa ciriiri buu galaya majaari dam marka qofka gaaja qabato ee uu oom qabto meelihii uu dhiigu mariyay ciriiri bay dareemayaan nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo tilmaamay shaydaanku aadamaha inuu ka maro meesha uu dhiigu maro oo xididada ah nabigu alayhi salaatu wasalaam saxaabada kamida ayaa habeenada kamida isagoo gabadhiisii la socda ayaa uu ku soo baxay saxaabadii nabigu alayhi salaatu wasalaam oo xoogow inta yare istaageen bay yiraahdeen bal nin iyo naagta soo wada socda aynu fiirino markii uu ku soo dhawaaday nabigu alayhi salaatu wasalaam baa waxay u garteen inuu nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam xaaskiisii la socda dibeetana talaabada ayay hoosta ka xadeen dibeetana waxoogo bay socdeen nabigu alayhi salaatu wasalaam intuu la hadlay ayaa uu ku yiri war eeyar iska socda waa xaaskaygii saxaabadii nabigu alayhi salaatu wasalaam intay soo noqdeen bay ku dhaheen rasuulka ilaahay wasaawmaanu jeedin nabigu alayhi salaatu wasalaam isagoo aqli celinaya niyadooda iyo quluubtoodana ilaalinaya
ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yiri inna shaytaana yajri min al-insani majra dami shaydaanku wuxuu cararaa qofka bini aadamka meesha dhiigu ka cararo marka waxaan isiri intuu shaydaanku qulubtiina gali lahaa oo niyadiina uu wuxuu ku tuuri lahaa bal ogaada idinkana niyadiina waxa gali lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka bini aadamka xikmadda soomka loo jideeyay qodobka 6 waxa kamida ruuxu hadii uu awoodi kari waayo inuu guursado shahwadii iyo rabitaankii iyo dareenkii naftuna ka xoog badato nabigu calayhi salaatu wasalaam xikmad weyn wuxuu galiyay inuu soomku yahay jabiyaha shahwadaasi nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo dhalinyarada la hadlaya ayaa wuxuu yiri yaa macshar shabaab dhalinyaroy man istadaa'a minkum alba'ata falyatazawwaj ruuxa awooda inuu guursado awood jireed awood maaliyadeed awood han awood caafimaad dhinac kasta marka laga eego nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri guursada falyatazawwaj waayas in la guursada fa innahu aghaddu lilbasar isha ayay u wanaagsan tahay laabitaankeyga wa ahsanu lilfarj xubinka taranka ee nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay in carabka iyo xubinka taranku ay qofka ama naar ay geliyaan ama janna ay geliyaan isagana wuu u dhowrsi badan yahay oo qofkii qof dhowrsan ayuu noqonayaa inta qofkii awoodi kari waaya ee waaya kharashkii iyo waxyaabihii iskaga bixinaya guurka nabigu calayhi salaatu wasalaam xikmad kale iyo wuxuu u dejiyay asaas kale oo nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam fa alayhi bisawmi qofkaasi ha soomo fa inna lahu wija soomkaasi wuxuu yahay dhufaanid iyo shahwadiisii iyo rabitaankiisii ayuu jabinaya ilaahay tabaaraka wa tacaala xikmadihiisuna way badan yihiin xikmadda ugu weynina waxa weeyaan in ilaahay tabaaraka wa tacaala isaguba inagu adoonsaday inaynu soomno xikmadda ilaahayna tabaaraka wa tacaala qofka muslimkii waa ka u hoggaansameeya ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu soomka inaga aqbalo